ogeysiis waxa la ogeysiinayaa dhammaan jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool waqooyiga Yurub iyo nawaaxigeeda in la qaban doono mu'tamarkii ama shirkii xagaaga ee sanad walba ka dhici jiray dalkan Sweden. mu'tamarkan oo ah kii 22aad waa midka ugu da'da weyn mu'tamaraadka ay qabtaan jaaliyadaha Soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan, waxaana iska leh qabanqaabadiisa ururada islaamiga ah ee wadamada Scandinavian-ka. waxana uu ka dhici doonaa sanadkan magaalada Stockholm ee dalkan Sweden 7 ilaa 10 August ee sanadkan 2014 oo ku aadan maalmo Khamiis, Jimce, Sabti iyo Axad. waxana mu'tamarkan 22aad mowduucyada lagaga hadli doono inooga waramaya mid ka mid ah shuyuukhda qabanqaabada wada. waxaan dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee wadamada Scandinavian ka degan ugu baaqaynaa inay ka faa'iideystaan oo ay ka soo qayb galaan mu'tamarkaas sanawiga ah ee sanad walba ee ka dhaca wadamada Scandinavian-ka, kaasoo looga faa'iidi doono waxyaabo badan oo ku saabsan umuurta diintiina, umuurta ijtimaaciga ah iyo dhammaan su'aalaha ay qabtaan. mu'tamarkan ayaa waxa ka qayb gali doona culimo caan ah oo kala duwan oo ay ka mid yihiin Dr. Sheikh Ali Mohammed Salah, Sheikh Mohammed Abdi Umar, Sheikh Mohammed Idris, Sheikh Yusuf Ahmed, Sheikh Mustafa Haji Ismail Harun, Sheikh Abdurrahman Abiyad, Sheikh Saeed Rage, Dr. Sheikh Mahmoud Abdurrahman Hori, Dr. Sheikh Harun Abdurrahman. shuyuukhdani ayaa waxa ay ka kala iman doonaan dalalka Norway, Kenya, Saudi Arabia, Sweden, Somalia, Denmark, Canada, Finland. haddaba wixii faahfaahin oo intaasi dheer waxaad kala xiriirtaan ciwaanada shaashada ku qoran.